waxaa sharaf noo ah inaan madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye iyo wafdi uu hogaaminayay oo ka qaybgalaya shirka madasha wadatashiga qaran ee lagu wado inay muqdisho ka dhacdo maalmaha soo socda inaan ku soo dhaweyno garoonka muqdisho sharafay noo tahay galmudugna runtii waxaan ku jirteen maalmihii la soo dhaafay jihaad culus oo kooxihii argagixisada ahaa dadka reer galmudug ay maaragtay ku soo gardaroodeen dadkuna aad ay u abaabulnaayeen iskana dhiciyeen arrintaasoo runtii dadka Soomaaliyeed oo dhan ku dayasho u ahayd marka madaxweyne soo dhawow golaha wasiirada xildhibaanada dhammaan mas'uuliyiinta kale marka hore waa salaamantihiin marka labaadna aad iyo aad baan ku mahadcelinaynaa soo dhaweynta iyo waqtiga dheer oo noo sugayseen aad baan kaga mahadcelinaynaa madaxda sharafta leh waa ku faraxsannahay waa ilaahay mahadiis inaan isu nimid annagoo u nimid inaan ka qayb galno shirkii madasha wadatashiga qaranka iyadoo aan wada ognahay waddanku xaaladda uu ku jiro waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkii xaaladaha waddanku ku jiro oo maanta runtii leh si gaar ah waddanka dadkii dalka u taabanaya in shirkan ay ka soo baxaan qodobo ama arrimo muhiim u ah oo mirdhal ah oo wax ka tari kara arrimahaas ay ugu horeyso colaadaha argagixisadu ay ku hayaan dalka guud ahaan ha u sii kala daraado meelo gaara hadda hawsha ka socoto laakiin dee waddankao dhan bay dhib ku hayaan iyo sidoo kale abaar ballaaran oo dalka waddanka ku habsatay oo runtii ilaa iyo 4 xilli roobaad saad ogtihiin aan waddanka roob ka di'in dhammaan waxaan rajaynayaa inuu shirku guulaysto sida looga dhursogayana ay wax uga soo baxaan maslaxada iyo arrimaha maanta laga sugayo ku aadan shirkaas mar kale waa idin mahadcelinayaa biidnillaahi tacaala ummadda Soomaaliyeed oo dhan